qaybaha kala duwan ee bulshada oo daneynayay siyaasadda iyo hanaanka doorashada ee Puntland ayaa dabeeto waxa ay sameysteen ururadaasina waxay bilaabeen sidii ay uga mid noqon lahaayeen siyaasadda Puntland iyagoo buuxinaya shuruudaha iyo foomka diiwaangelinta ururada inta aanu dhammaan waqtigii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay in ay isku soo diiwaangeliyaan haddaba intii u dhaxaysay bishii March ilaa iyo dhammaadkii bishii June waxaa hawlihii guddiga saameyn ku yeeshay cudurkan fayraska ee COVID-19 loo yaqaano ha yeeshee guddigu isagoo raacaya talooyinka iyo tilmaamaha mas'uuliyiinta caafimaadku ay bixiyaan waxa uu si taxaddar leh u waday hawshiisii sida kulamadii ay la qaateen guddiga ka hortagga COVID ee Puntland iyo iyana ururada isdiiwaangeliyey shirarkaasi waxay ku dhaceen habka internetka ee Zoom-ka loo yaqaan guddiga doorashooyinku waxa uu mid uga guddoomay ururada siyaasadda ee soo dhammaystiray qaybo ka mid ah shuruudihii diiwaangelinta ee wejiga labaad oo waqtigii loo qabtay uu ahaa 22 Julaay 2020 29 Juun 2020 guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinku waxa ay bilaabeen kormeer ay ku sameeyeen dhammaan xafiisyada ururada siyaasadda ee gobolada Puntland si loo hubiyo in ururadu ay leeyihiin xarumo leh astaamihii lagu xusay habraacii isdiiwaangelinta ururada siyaasadda ee Puntland. Assalaamu calaykum. walaal waxaan ka soo wacay xafiiska guddiga doorashooyinka Puntland. magacaaga iyo nambarkaaga waxaa noo soo gudbiyay urur siyaasadeedka Himilo. waxaan doonayaa inaan hubiyo inaad ka mid tahay taageerayaashiisa. 10 ka mid ah ururada siyaasadda ee fuliyay shuruudihii urur oo sharci ku noqon lahaa iyo guddiga doorashooyinka waxa uu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu guddoonsiiyey shahaadooyin. koowaad waxaan u hambalyeeynaya ururada siyaasadda Puntland ee soo baxay waa guul dhow oo ka mid ah guulihii dhowaa oo aan higsanaynay in la bilaabo barnaamijkan dowladdan cusub sanadkeedii koowaad wuxuu ahaa guushii dhoweyd koowaad ee la gaaro maantana waxaynu haysanaa tiir ka mid a tiirarkii ugu waaweynaa ee barnaamijkan oo ah inay noo jiraan ururadii siyaasadda oo noqonaya sumadda hadduu ilaahay idmo maanta aynu yeelan doono haddaynu shalay ay ahayd sumaddeenu jifiya ahayd maanta sumaddeenu waxay noqonaysaa ururo siyaasadeed kadibna waxaa ururada loo furay tababaro ku saabsan xilka iyo waajibka saaran ururada siyaasadda.